nin reer miyi ah ayaa marayay meel buur agteeda ah. wuxuu arkay nin waayeel ah oo buurta agteeda fadhiya, wuuna indho la'aa ninka. waxaana ninka jirkiisa ka muuqday inuu qabo cudurro aad u badan, waxayna u ekeed in odaygu aan sii noolaan doonin. qaybo jirkiisa ka mid ahna wax dareen ah ma lahayn, sidaa darteed hal dhinac oo keliya ayuu u fadhiisan karay. marka ninkii reer miyiga ahaa oo odayga in yar ka gudbay ayuu maqlay odaygii maskiinka ahaa oo leh, ilaah ayaa mahad leh, allihii iga badbaadiyey cudurro badan oo uu dadkiisii ku imtixaamay. runtiina alle wuxuu iiga doortay qaar badan oo ka mid ah kuwa uu abuuray. ninkii reer miyiga ahaa ayaa ku soo noqday odaygii, wuxuuna ku yidhi, walaal, ma wax alle kaa badbaadiya ayaa jirta? ilaah ayaa ku dhaartee cudur jidhkaaga ka maqan ma jiro, ee bal ilaah ka bari inuu ku caafiyo. odaygii ayaa isagoo dhinac isku tiirinayo ninkii ugu jawaabay, walaal, haddaan haysto af iyo carab aan ilaah ku xuso iyo qalbi aan ilaahey ku xidhiiriyo, maxaa kaloo iga maqan? nolosha qiimaheeda waaba intaasba dad aan haysan ayaa jiro. erayadan ayaa beddelay ninkii reer miyiga ahaa oo ahaa nin aan diinta ku fiicnayn. ilaahay subxaana wa tacaala ayuu u toobad keenay oo dembi dhaaf ayuu weydiistay. muddadaas kadibna wuxuu ahaa mid alle ku xidhan. ilaahayow naxariistaada na sii yaa rab.